waxaan ka sheekeynayna ictikaaf maxaa waaye goormaa la ictikaafa halkee lagu ictikaafa maxaa loo ictikaafa fadligiisa maxaa waaye yaa ictikaafi jiri intaas dhanaan ka jawaabay alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wala jirtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa xalaqadii todobaad oo barnaamijkii ahaa bisha ramadaan iyo axkaamteeda walaalay lixdii xalaqa lasoo dhaafay waxaan kasoo sheekeynay soonka iyo fadligiisa xalaqada koobaad tan labaad waxaan kasoo sheekeynay soonka xukunkiisa aan kasoo sheekeynay muxuu yahay tan saddexaad waxaan kasoo sheekeynay arkaantuu ku taagan yahay soonka kasoo sheekeynay tan afaraad mubtilaati soonka maxaa burinaya ayaan kasoo sheekeynay tan shanaad aadaab loo baahan yahay qof walba oo muslim inuu sameeya kasoo sheekeynay tan lixaad qofka sooman maxaa u bannaan inuu sameeyo oo soonkiisana jibanaynin ajirna ka nusqaaminaynin inta labada maantaan ka sheekeynin waxaa waaye ictikaaf maxaa waaye axkaamtiisana maxaa waaye ictikaafka intaanan sheegin macnihiisa wuxuu yahay waxaan rabnaa warta marka hore kelimad ictikaaf asalkeeda halkay ka imaatay qur-aanka ilaahayna laba ayaan ka keenayna axaadiid wado nebiga sal alla alay wasalam nebiga leeyahayna waa sheegayna insha allah aayadda koowaad suurat albaqara ku jirto ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yihi wacahidnaa ilaa ibraahiima wa ismaaciila an tahira baytiya lilطaa'ifiin أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود إليها آيات كلنا وحوك ليه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد اعتكاف إنه قفك ميل اسكو حيرواه لكن كان ربنا وحاوي أنك قفك إنه نيستو إنه مساجد كي ماذا طاعة إلهينا ويما اعتكافك وحاواي لزوم المسجد قفك إنه مساجد كجوجو بنية مخصوصة نية أو خاصة لطاعة الله إنه إلهي طاعة ذي سأنيستو ميل والبقفك اعتكافك وحولي كلا برجع اعتكاف إنه قفك ميل اسكو حيرواه لكن كان ربنا وحاواي أنك قفك إنه نيستو إنه مساجد كي ماذا طاعة إلهينا ويما إمام أحمد رحمه الله تعالى وحير لا أعلم أحدا من العلماء إلا أنه قال سنة عالم ما قرنا إلا وحير الاعتكاف وسنة الإمام الزهري رحمه الله تعالى وحير عجبا لأمر المسلمين وحر ليا بمسلمين أمر كوضا ليا تركوا الاعتكاف اعتكافك واكتغين ويري مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم marna kamuu tagin suu madiina u yimid sanad walba uu ictikaafayay sanad walba tobanka u dambeeya oo bisha ramadaan uu ka ictikaafayay sanadkii u dambeeyay uu dhimanayni 20 maalmood uu ka ictikaafaybo meeshii 10 uu ka ictikaafi jiray 20 maalmood uu ka ictikaafay idan ictikaafka xukunkiisa waxa waaye sunnah waaye qofkii awoodo inuu ictikaafo ha ictikaafo سؤال لبعض قرمان الاعتكافة وقت الاعتكاف قرما واي جوابته وحاوي وقت والبوا اعتكافي كرتا لكن طبعا قدام بشهر رمضان وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واعتكافي جري واي إذن قرما الاعتكافة وقت كستا اعتكافي كرتا قار أهان طبعا قدام بشهر رمضان meeshaan su-aal kale imaanayso haddaan rabo tobanka u dambeeya inaan ictikaafo goormaa masaajidka soo gala masaajidka waxaa soo gelaysaa maalinta 20aad casrkeeda ayaa soo gelaysaa waxaana ka baxaysaa habeenka la yidhaaha biri waa ciid cisho markaad tukatid xoraa tahay haddaa rabtid ilaa salaada subax waa joogi kartaa su-aasha saddexaad halkee lagu ictikaafaa jawaabtana waxaa waaye waxaa lagu ictikaafaa masaajid ama masaajid oo jamaaca lagu tukado jimcana lagu tukado masaajidaan jimco lagu tukanaynin haddaa ku ictikaaftid macnaheeda waxaa ku qasbanaanaysaa inaad kasoo baxdid ayaa ku qasbanaanaysaa sidaa darteed waxaa loo baahan yahay masaajid weyn oo jimcana lagu tukado jamaacana lagu tukado oo masaajid ah inaa ku ictikaaftid taas waxaa ka bixaysa marka masaajidaha suuqa ku yaalo suuqa waqtigu furan yahayna furan markuu xiran xiran kaas mowlac waa masaajid ma masaajidaha u samaysan inay masaajid ahaan yihiin jamaacadaha iyo jimcooyinkana lagu tukado kaas waa kan lagu ictikaafo suuqa masaajidaha ku yaalo suuq ahaan lagu ictikaafo
سؤال أفراد محل اعتكاف وصوبت الاعتكاف هايو محيتها جوابتنا وحيتها وحلو اعتكاف وحيتها إنان هلنو أرمها صوصو أقول الرئيس وحاوي تحري ليلة القدر وحان اعتكافينو oo 10 maalmood masaajidka aan u imaanayno oon guryaheena iyo shaqooyinkeena aaga soo tagayna waxaa waaye hal sabab taxari laylat alqadr raadinayna leylada ka khayr badan kunka biloodan raadinayna leyladaas maxay tahay xalaqada soo socdaan ka sheekeynayna leyladaas iyo faa'iideeda insha Allah taala laakiin maxaa loo i'tikaafa waxaa loo i'tikaafay ugu weyn waxa way habeenkaas oo laylatul qadri inaan helo sababta labaad oo i'tikaafayna waxay tahay al-khalwatu billah ilaahi subhanahu wa ta'ala ina la kaliyoono ina kaliga tira ilaahayo adduunyadii waa ka soo tagay xaaskiigii waa ka soo tagay shaqadii waa ka soo tagay gurigii aan seexanayo sariirta fiican iyo joodarigii iyo bustihii iyo yaali waa ka soo tagay waxaan imaaday masaajidkaaga gurigaaga dhulka meesha ugu jeceshihiidaan imaaday ilaahayow adigaan kuu imid ilaahayow waxaan kuu imid danankaa leeyahay ilaahayow adigaan rabaa keligii inaan kula hadlo ilaahayow waxaan rabaa isi yani khalwa maca allah subxaanahu wa tacaala ilaahay inaad la keliyootid dadka fiir markaa ila wallahi almathal ala qof markaa wax weyn ka rabtid goonin oo bixiyaa leedahay walillahi almathal ala sababta saddexaad aan u i'tikaafayna waxay tahay islaax alquluub qalbigii inaan dhaqno qalbiga inaan hagaajino walaalayaal qalbiga waa boqorka jismiga waaye jismigan ilaahay subxaanahu wa tacaala laa yanduru ilaa suwarikum ma fiirinaysa oo eegteed qofkan waa dheeriya qofkan waa cadiya qofkan waa madowya qofkan waa gaabanya qofkan waa qurxanya qofkan waa fulxunya no ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaas ma fiiriy ilaahay saa ku abuuray hal laba arrin uu fiirina niyadaada uu fiirina iyo camalkaaga bas saa rabtid u ekaaw idan waxaan u i'tikaafay waxaan qalbiga rabnaa inaan dhaqno oo nadiifino laana qalbiga saan ognahay iimaanka daacada kor ugu kora iimaankiisa haddii macsiyadana iimaanka hoos u dhigaa idan qalbiga waxaan rabnaa inaan ka buuxino iimaan ka buuxino khayr inaan ka buuxino sidoo iimaankeena kor u kaco ilaahay quluubta hanoo hagaajiyo sababta afraadna waxaa waaye al-inqitaac taam lilcibaada inaad tustid ilaahu waxaan u soo go'ay inaan adiga ku cibaadaysto cibaada bisan u soo go'ay soo ma jeedid wixii dhan waa soo wada xirxiray nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam sameey jiriyeen sameeyna oo Caaisha inoo sheegtay 10 ramadaan markii la gaaro bisha ramadaan shidda ma'zarah dhaxdu dhoosan jiray oo ay qada ahla dadkiisoo kicin jiray marka 10 u dambeeyeen wuu i'tikaafi jiray ilaahayo 10 kan cibaadadaada bisan raba inaan sameeyo salaada raba inaan tukado soonkii waa soomanahay quraan raba inaan aqriyo adkaar raba inaan aqristo duca raba inaan sameeyo masaajidka gurigaaga raba intaas inaan ku sameeyo adduunyo iyo keeskeeda ilaahu waa iska soo xiray adigaan kuu soo go'ay iyo cibaadadaada bas ee ilaahayow cibaadada iga aqbal yaa kariim cibaadada iga aqbal tan shanaadna waxaa waaye soonkaaga inaa ilaashatid markaa banaanka joogto aad qofaa isku buuqaysiin qofaa isdagaaraysiin xanaa gelaysaa sheek indhahaaga meel xun ku dhacaayo waxaa dhagaysanaysaa waxaa daawanaysaa xun ma rabtid inaad ka mid noqo dadka nabi sallallahu alayhi wasallam yiri dadka qaarkooda waxaa laga yaabaa soonkooda baahi iyo cunto kaliya inay ka qaataan baahi iyo oon inay ka qaataan ee waxba ku helin 10 marka waxaa rabtaa inaad tustid naftaada soonkaaga inaad ilaashatid على الأقل هدي وحي بدبادي وين طمكان قدام بيها إيه بدبادان أو صوم لله النقطة أو معصية لهن وعاي لهن وحل لهن وإنده حتى عنك إلى أن ميرحون إن يكون عام وأرنا أدو قيمة بدن يكون ذا الاعتكاف هذا وحان كجوابنا فضائل كاعتكاف كأوليه محاواي أنا اعتكافي فضلي كان هلاي محيتها جواب تولا الوحاواي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحويري حديث قدس إلهي وحويري ما تقرب إلي بعبدي أدونكي وحي موسو دوادو أنجعله وفرائد ككوين مركزتو سنة سماياني إلهي وحويري واجع لنا اعتكاف كان هو سنة واي والنبي صلى الله عليه وسلم سمين جري إذن هدا اعتكافتي
بنية القصد أضو سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كود دينيس اعتكافتي وحاسمين وحياله إله سبحانه وتعالى جعليه أي سميني ساي كود ذال النبي كود ديو صلى الله عليه وسلم لبا أخرنا نور دمان أو كساب سنة اعتكافك شروط اعتكافك محا وقفك ربا إنو اعتكافه محا لاغا باهية شروط لاغا باهية شروط اسمحي تحي وحاكلو لو باهية إنا وان اعتكافك محا بريو وحوال بوحا بريو صلاة وحا بريو صومكنا وحا بريو حجكنا وحا بريو وحوال بوحا بريو اعتكافك محا بريو لبس سؤالو وين وايه وقتي بدل مرة إنا قاتل كليبك انتي لو تركالي وقاري لبدن سؤال إن شاء الله تعالى وحان كجوابينا بري هدو إلهي راهو سيفي عن أدقيسو حلقة لبدن سؤال لسك إن شاء الله تعالى سأوحيش اعتكافك حكم كيسو رميسترا إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا إلهي درتي سيدي جعلها بارك الله فيكم أولا بينتي سيدا عادة أنه أغان جرتي مركان لما محاضرة سؤال أيدي ويدين جري سؤال شمان تربينا أيدي ويدي وحيتهي نبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة قدام بي لبعتم مع الموضوع اعتكافي محو اعتكافي صوبته اعتكافي محيتهاي كسو جواب خير الله كسيه جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إلى درتي سيدي جعله والله إلى سبحانه وتعالى وحاوي دينا دنبيجين إنه ضافه بشهر رمضان صوم كذا نجا أقبله الله فيكم سؤال كسو جواب وإنه بريته هدو إلهي هذا إيوه لبدي السؤال أني إيجابه هذا إنه كسو جوابه شروط اعتكاف وقف اعتكاف محل باهي اعتكاف كريم محابريو جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وإنه بريتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.